ragga iyo siyaasiyiinta taariikhda qore ee reer Soomaaliya waliba iyagoo familygaaga ka soo jeeda oo general galaal ugu dambeeyeen iyagoo kaaga sheekaynaya waxay ku wada jiraan meel walba maqal iyo muuqaal buugaagta ay qoreenna way ku wada qoranta waxay lahayd taasna inay dhalinyarada hawiye wada ogyihiin labadii nin waliba Michael Maryama ayaa wuxuu ku aasaasay ururka dhame ee sheegaysaan SOL maanta u taqaanaan magaalada Diradhabeelayaad Sheekh Hebel Jimcaale oday la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa rag badan oo kale oo SYL asaaskeedii lagu sheego Diradhaba ayaa shirka lagu soo baaleeyay ninkii ajendaha soo dhigay ee soo gooyay ee fikradda lahaana wuxuu ahaa Michael Maryama ciiso nasoo in horta taariikhda noocaas ah aad wada haysaan dhalinyaradiina hawiye markaa tihiin laakiin qofku haddii uu kaliya ku qaraarsan yahay waxbaan uu sameynay oo xitaa aad taariikh iga dhigayso Daala Airline ba waxa aanu idin keenayo shalaya waa adduunyo marka walaal wax kale ku oran maayo hadalka meel fog geyn maayo laakiin waxaan ku leeyahay dib taariikha u yara akhriso waxba faan waxba ma taro iyo waxaasaan ahaan jiray waxaan ahaan jirina af kuma noqonaysid tan geemka ay imika aynu ka hadlaynana waa sax anagu ka Soomaaliland ahaan haddii reer Soomaaliya de geem ciyaari karayaan oo arkayno dabcan reer Soomaaliland waa diyaar reer Soomaaliya laakiin calankoodii qaadan karaya oo maxaa la yiraahdaa aan oranaynin anagu Puntland baan la yiraahdaa anaga Jubaland baan la yiraahdaa anaga Galmudug baan la yiraahdaa anaga Kanada la yiraahdaa haddii aanan arkaynin waa sax anagu waxa weeyaan reer Soomaaliya marka waa la ciyaari karnaa laakiin de iminka kulay waqti bay idinku qaadanaysaa baan hubaa in aad ka soo baxaynaysan dadkiina meelaha anagu se diyaar baan nahay aadna waa mahadsan aad baad mahadsantahay horta waxaan ka codsanaynaa dhammaantiin dadka sharafta leh ee goobta ay halkan fadhiyo horta inaan is ixtiraamno doodana aydna ka dhigin UNC iyo SNM oo wada doodayso arrintu qadiyadda nooca waa ka weyn tahay waxaynu rabnaa inaan doodo noomir wax dadka adaa fasaxayo wanaaga aan ka shaqeyno lii xaaji nin baa iskale marihida mood galnaa macaanoya waqtiga daqadaaga waxaad ku sheego maya adaa dadka fasaxayo adaana afeefanayo ma fasaxayaan marka hore programka ka bixin leh laakiin iyadoo lagu socdo see u aamusa aniga ilaa xarab gaari saarin bale horta mood gal marka waxaan rabaa daar calisow raallahow aniga iyo baroon xarfe iyo ugaaska guud ee meelaha daarada halkan fadhiyo ninkaa leelkase meeshan waxaan usoo furanay in markaan aragnay habqanka meesha yaallo isxaqiraadda xiqdiga dhibaatada ka socoto meesha la yidhahdo TikTok-ga iyo dadka Soomaaliyeed dhex taallo oo weliba hal group oo gooni ay wadaan inaan bal Soomaali isku soo dhaweyno wanaagna ka shaqeyno markaan isku soo dhaweynayo waxaa weeye haddaan adigu Daahir Calisow oo habar gadridaa tahay oo aad sac tahay oo nin maanta waxgala aad tahay aan kuu qiro waayo xaasid ma noqonayo wanaag ba halka ka dhalay laakiin haddii aan adigu ku xaqiro oo aan dowladnimadaada xaqiro oo dadnimadaada xaqiro oo aan wax walba xaqiro dhibaata ka imaanayso marka Soomaali caafimaad qabtaan rabnaa game ba inoo yaan diyaarinaynay oo magaca Soomaaliya lagu ciyaaray qofkii ciyaar lahaa maanan qaban qabiilku doono ha ahaado laakiin muhiimadeedu waa in Somaliland iyo Soomaaliya ciyaarto horta maxaad ka aaminsan tahay Somaliland dalka la yiraahdo Andreska nahay ku soo ويا بسم الله الرحمن الرحيم horta ninka la yiraahdo lii xaaji marka hore waxa la lii xaajiyow marka rabtay inaad taariikhdii xaaji Faarax Cali Cumar iyo ka sheekayso iyo halgankiisii cidda kala hadlayso horta waa inaad taqaanaa taariikhda qofkii qana laga hadla qof aan taariikhda aqoon waqti ha ku luminin oo de dad baa jiray macdeero inta meel isugu yimaado miyi ka yimaado meel ku sheekaysto ku shaacabo wax soo sheego oo kadibna waxaas buu qofka intiqaasan yahay ama wax la isku faan intiqaasiin halgankan ninka laba arrin ku sheegay waa jireen Michael Maryama iyo ninkii Yemen joogo dhaqaalaha bixinay labadu shaqay ahaayeen halgankii xorriyadana kaadina wuxuu ka ahaa dhinaca sharciga u qaabilsanaa dhinaca dhaqaaluhu qaabilsanaa iyo raggii kaabay ahaayeen hadalka uu ku sheegay labaas ka qaada intaas ka saxa waxa kale wax ka jira ma jirin adigu waxaad tiri daabshiil baan sacada aasaasay waa ka saxaya daabshiil xilliga SNM-ta la aasaasay mana ahayn mid oo nin sacada aasaasay laakiin saacadka adigu waxaad aragto markii laga furay suuqa bakaaro oo 92 meelaas ahayd iyo ninka faqashiniga Faarax dhihi jiray marka taasina waa iska leed waa ma ahan wax oo hadda waxa sax kaliya 3D cards ago 3 sanadood ka hor in Daala Airline Axmed Ducaale gil xaaf keenay oo ninka dhihi jiray oo ninkii colaad gabay xadii iyo ilma abasiti uma taqaana oo sheer la noqday taasa sax ad ku tahay marka taariikhaha markaad ka hadlaysid qofka kala hadlaysid munaasabada kala hadlaysid iska fiiri meel kasta ku furin awrta
tan kalena markaa qofka la doodiis meega ha ka soo bixin hadba ha soo boodid wax lagaa sheego waa inaad sugtaa aruursataa noodgaraysataa haddaad doonaysa qofka inaad doodaa marka lagu jawaabtaa bartikool ahaan ma aha sidii qaadwalayaasha inaad soo boodboodda ma aha iska ilaali markaad meel ku jirto intaa waxaa uga tegayaa arrimihii taariikhda ku saabsanaa wuxuu yidhi odayba waxaa laga hayaa war islaantaydii cambarbar weyn buu yidhi habeenkii caana iguma mari jirin duulshaan baa kaga dhacay iminka maryaxaan aqoonsiga somalilan u olaynaya waa arrin kale innagu waxaan ogeyn maxamed caliyo shalay adiga ninka taageerada farmaajo oo somalilan cunaqabatayn ku hayo meel walba ka xanibayo warqad la doo taagani warna lagama maqli jirin iminka arrintan maryaxaan somalilan u olaynaya anu shaki badan baan ka qabaa waxa kaloo aan shaki ka qabaa haddii soomaaliya lagu ciyaaraya yaa ku ciyaari kara wiil noocee ku ciyaari kara gabar noocee ku ciyaari kara taasna shaki aan ka qabaa marka annaga somalilan iminka dal ma aha madax bannaan laakiin dal loo aqoonsanayo haddaan hawiyanahay wax iyo erer soomaalidan nahay meel kasoo joogno waxba kama qabno ku faraxsanna haddii geem soomaaliya somalilan dheelaa ku faraxsanna laakiin su-aashu waxay tahay somalilan yaa mateli kara ma waxaa rabtaa kii habeen hore ay majeerdheenka wateen oo kale inaad usoo fadhiisato meel la keensada miyaartiin macquul ma aha somalilan haddii lagu dheelayo qofkii ku mateli lahay ku xidhanta soomaaliya haddii lagu dheelayo qofkii mateli lahaa ee magacaa soomaaliya awoodiisa qaada lahay ay ku xidhanta ma rabna waxa isku dhifasho ah anigase qorshe inaa leedaha ka baqayaaho meesha inuu qorshe kale kugu dhex jiro arrinta intaasaan mataqaanaa kusoo gabagabeeyey waxay isug atraal ahow baron xarfan waa kan bulsho badan oo soomaaliyana daawanayso wallaahi وبالله وتالله حتى صادق دار على سوسونين مانتا غير صوماليا أو قلب دقصنا ما تيتهاد وكتاج أكو آمن قبا حتى أدو أدنقوه قامني سوق جيم كائنه لا وكاقدم بيننا هي اللي هو قرب استاجينا هرت ما ماذا أقول صحيح على بروين عانى يوم هذا الجنة مدور شاب أو قناع هرت نيو ويعرف نمدو يو حقرن نمدو قف إلهي وحسيه وقت قدر وسوجو أنا وحن صو حقيقي رسالة عن سمية باريتان عن سمية وح حقدك يحاسد كسومالي لان كوضو إني صندارات كأودمين مريحان كأودمين أبا هاي تدرت أودمين هويه شغل كل حين أي حلق له أي هوشان أوتو باريتان دير المدة سووريت أوكي هدي ما أنت اللي هذا بدحوينها الصومالي حس الشيخ وأنا ذرك أو نهرب هذا بتاعك سنت وإلى ما أنت الصومالي لان بالله لي qofku u horeeyay ee diidayo inuu Soomaaliland la hadlo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya la wada hadlayo diidayo waad garanaysaa anagoo galmudug diidamayno anagoo Jubbaland diidamayno anagoo koonfur galbeed diidamayno ninka hadlaya waa garanaysaa anagu waxaan rabnaa marka bal in aan dadkan runta u sheegno ummadana aan tusno in ay Soomaali madaxa aysan ku qaadan karin ay Soomaalina ka badan tahay dagaal aysan gelin karin ban horta anagu ka leenahay haddaad adiga daayir cali soo ah oo waliba aniga Brown iyo ninka odaga waa kaaga dambeynayna kugu ixtiraamayna aad geemkaas qabanayso waynu kaaga dambeynayna waa ku garab istaagayna waan ku taageeraynaa dan kale gooni aan ka leenahay malaha danta aan ka leenahay waxay tahay xurmo iyo ixtiraam in aan helno dadkeenan reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya dadka xun ee xaasidka xirdiga qabanay aynu u sheegno inaysan nagu matali karin dagaalka ay ku jiraan ay u gooni tahay ee xinka u haysto intaas dantan ka leenahay ay tahay wax kale meesha yaala ma jiraan aduguna boofiska iska saar dagaal way naga dhaxayaan laakiin dagaalku waa iska dhamaanaya laakiin waxa jira wax badan baa naga dhaxay koow anagoo dagaalsan waxa naga dhaxaysa diinta wada difaacanayna diinta waa wada difaacanayna oo yaa ka difaacaynay ninaan isku mabda ahayn Soomaaliya anigu aan ka difaacay aduguna aad ka soo horjeed horta waxa la rabaa qofku waxyaalaha masiiriga ah ee idin ka dhaxeeyo iyo waxa idin kala goonida ah inaad kala ogaataan rabaa daar caliso anigu haddii qabyaaladii u jirto geesdir ninkii markuu dambiga galay oo diinta caayay aniga adigoo dagaal laga dhaxay soo istaaga ma dhahay runta ma sheegayno qalad bay ahayd ma dhahan xaqana saasaan ugu adimaa nin wax qarqariya ma ah annagu waa naga go'an tahay niyad bay naga tahay waa kugu dhaaranaynaa in Somaliland dagaalkeeda waxa ku jiro waa qolob gooni ah wato haddaad marka adigu hawiyo adoo ah dagaal aad shaqo ku lahayn aad galaysana aday ku taala haddaad nagu raacayso waliba nagu hogaaminayso adaa madaxweyne maanta Soomaaliya ah waa kaaga dambeynayna waa ka ku soo noqo 2 daqiiqo waayahay horta 2 daqiiqo ma rabi anigu horta Somaliland iyo Soomaaliya game u dhaxeeya anigu ciyaari mayo idinka ka warsugaya sababtoo anigu waxaan ahay boqorkii labada buurood labada dhinac waa jira qofkuna waa inuu lahaadaa mataqaanaa micne iyo qab waa inuu lahaadaa iyo mas'uuliyad
marka mas-uuliyaddeeda waxay leedahay maaniga u kala heli kara hooyo aabe aniga Somaliland iyo Soomaaliya uma kala heli karo qabkii runta waa ka wen yahay waxaan rabaa inaan Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya iyo kilka iyo waxa iga jira Kenya aan isku haysto marka arrinkaas adiga iyo Baron ka soo shaqeeya nidaamkiisa keena guddiga dhinaca Somaliland keena ayna fiirin labada qofood ee kala matali karta Soomaaliya iyo Somaliland gamekaas u safakarta mas-uuliyadda inta la qaadi karta asla hubino oo aniga inta ay u ixtiraama inta kale waa idin fasaxay marka warkaygu ma badnaa inta sabab ma anagu fiiri anagu daahir baaranaya daahir maadaama uu yiri yaa Soomaaliya matalaya xogaa madaarad baa soo wadaabay u dhigan tahay niyo mid aan ku daray daarood iyo hawiye xogaa Soomaaliya daarood ka banay baro ka saxaya laakiin qof u qalmaan raba waniyo hawiye daarood maadaama hardankiina Soomaaliya uu badan yahay wiilka Soomaaliya matalaya waa inuu nin dira oo suraan noqdo dhexdhexaad inii ah noqdaa labadiina ninka Somaliland matalayana dareeraha reer Somaliland oo Mareesha saxaaq ama Samaroon oo noqdaa sidaasay baashu dhexdhexaad ku tahay daarood iyo hawiye Soomaaliya maadaama madaxa isla gashay nin suraa waa inuu noqdaa anu surra ma ogaado nin gaadsananaago laakiin waa inuu nin suraan noqdaa oo dhexdhexaad way maxamed calaw wax yar baan ku oranayaa hal minute may arinta gameka uma wax yar idin oranayaa idinku maadaama aad reer Soomaaliya tihiin intiina meesha saaraniba horta xaq waxa uu leeyihiin wixii Soomaaliya iyo qofkeeda iyo shakhsigeeda quseeya inaad ka wada hadashaan wixii Somaliland quseeya umalayn maayo inay shaqadeedinta la tahay marka haddii aad leelkisa keenaysaan iyo haddii aad surro keenaysaan iyo haddii aad sacad keenaysaan iyo haddii aad caalas showgan fadhiisinaysaanba كل يدين كوبايدين تطلع عدة كينيسان تسومال لما تمي شغال يدين تطلع معها كلية يدين كحقي نينا كديار جرودين بمهمة ما لنت الديار نقطانا أنا قلت لهذا نيمة كديار بانو نهاي أنا مركا كتشنو معلي هذا قفك أنا فريسين لهين يعدي وحوية نومتي لهين أنت بقى أنت صرت وأنت تينا كوكوب نادا بالفضل ايوه ما صنت اوكي انت برونا صح يا لكن عيسى داير wuxuu sheeganaya maadaama inuu boqorka Iris Soomaaliya labada dhanba ayuu daahir sheeganaya taasaba walaal ma jiro wax leeyado Soomaaliland iyo Soomaaliya wax isku xidha oo ka dhaxeeya Allah iyo waxa isku muuqdo walaal dhaqan walaal deemaya walaal xaqiiqada marka doonayso yaanu qof ku sheeganin wax aan jirin oo aan Soomaaliya iyo Somaliland ka dhaxaynaan jirin adeeg Soomaaliya iyo Somaliland waxa ka dhaxeeya waa wada hadal wax kale oo ka dhaxeeya iyo madax ay wadaagaan iyo wax weeye ka dhaxeeya oo dad qabiilo weyn wadaagna waa la oran karaa imka boqor direed baa jira waa la oran karaa boqorka direed meesha doonu ku noolaan karaa laakiin anigu ma aqoonsani manaan arag reer Somaliland ma aqoonsana qof Soomaaliya ka soo jeeda oo iyaga mas'uul ah ma taas cod baan galnay ما jirto walaal ma cod waxaan ka daba tegayaa Baron Xarfo أنا waxaan qabaa arinta Baron Xarfo iyo arinkaaga qofka Soomaaliya matalaya codayn baa loo sameyn doonaa qol weyn tala sugu yimaada dhig doonaa qabiilka ugu badan ee majority-ga codka ugu badan helasha ayaa noqon doona qabiilka ka soo dhex bixi doona laakiin qofka horta muhiim qabiilka muhiim ma aha laakiin qofku waa inuu ahaadaa qof mataqaanaa Soomaaliya calankaas quruxda badan matali kara Somalilandna sidaas si lamida ayaa loogu samaynayaa codayn ayaa loogu samaynayaa xilliga waa laga gudbay qof oo arinta Somaliland ma mudigal ku dhageysanaya mudigal ku dhageysanaya mudigal ciise u jawaab ما جوابنا عيسى قضية Somaliland game hadduu yahay odayaasha ugu sarreeya waliba odaga ugu sarreeyaan nahay ee soo ansixin doona qaabka loo marayna waxay noqon doontaa in codayn la sameeyo wey meeshaan dad yaroo meelaha wax ka raadihayo shilimaad ka raadsanaya iyo dad yaroo baahan iyo qadiidaha wax laga weydiimayo odaga buuraha nahay odaga buuraha asaga xukumayaan nahay wixii kale wax iska noqonaysaa waa la yiri iyo huuhaa iyo shimbirwaaqlayn iyo waxa weeye meeshaan waa la soo tijaabiyey waa la kala adkaaday baashaan haddii laga hadlayo social media odageediyaan ahay waa ku soo kala adkaana dadkan wixii meelaha dhagax tuurayo iyo burca wixii ka shimbirwaaqlaynaya shimbirwaaqlaynta oo soo dhaqaanaa taas waa iska okay laakiin
ta Soomaaliya qofka matalaysana codayn baa la gelinayaa oo beelaha loo codaynayaa xagga Somalilandna beelaha loo codaynayaa kadibna dhowr qof baa la soo kala qaadanaya oo kala matalaya beelaha kadibna dadkaasa codayn lagu kala reebaya oo cod oo boolka lagu kala reebaya dadkaasaa ka soo baxay tusaale ahaan baro xarfu wuxuu rabaa inuu dir u soo baxdo qof diraha la ima waa leeyahay qof hawiyahan keenaynaa qof digili mirfla la keenaa qof daarooda la keenaa beeshaas qof baa la keenaa shantaas ayaa bool lagu soo kala saaraya xaggaasna qof faqashiniya imaan doona oo hawiye matalaya ama qof gabooye matalaya iyo qof mataqaana matalaya dhulbahante qof warsangeliya qof samaroona qof ciise ah qof mataqaana isaaqa sidaasaa lagu soo kala reebaya ayagana bool markaasuu u fadhiisanaya asoo Somaliland matalaya habkaas dimuqraadiga ah ayaa wax loo wajahaya annagu ma nihin kuwa meelaha ka fadhiyo dad akademiga nahay habka wax loo doorto yaqaan daar caliso ni horta anagu hadda caawinaan game ciyaaro waa ku siinaya waxaan ku siiyo halka daqiiqsi anagu horta niyow maadaama aynu nahay reer Soomaaliya oday ruucada ah siina yeela aad tahay waqti badan social media fadhiyay anagu qolo gooni u dooni mayno ani bron qof gooni ma wadano anagu ciyaari mayno gamekaasi taladiisa aad wax ku leedahay oday baad noogu tahay inaad arrinkaas nagala shaqayso tartan nin alla ninkii Soomaaliya qabiilku doon ha ahaado raba inuu calankaas matalo uu soo tartamo boolka lagu kala baxo qofkaas calaamad saarano qofkaas Soomaaliland nolol ciyaar rabnaa tan labaad waxa kale oo loo baahan yahay oo imkaaniyaadka dagaalka lagu gal lahaa inaan ayadana isla meelayno oo isla qaabaynaal rabaa dad badan baa maanta qalbiga jabay oo caawa xanaaqsan oo seexanayn inaan tusno inaysan anagu dagaal la gelin karin inaysan maartay anagu aan nahay dad madax bannaan oo xor ah dadkii dalkan hogaaminaya aan nahay Soomaalina aan nahay colaadna ay Soomaaliland nagala dhaxayn aduguna boqorkii reer Soomaaliya aad tahay marka waxaan leenahay darbiyada iska fadhiya adeer mar hor istaagi kartaan ciiso ku soco daar caliso arrinka meesha dhigta way waa taladaasna waxa way odaynimaad noogu tahay waa ku garabsaayna hili hoban ugu taagan waayahay horta maxamed calo aad baa ku salaamaya suldaan waxaan filayaa waxaad isla qorfeynaysaa inuu waxay ahayd arrinta Soomaaliya ayaan u jeedaa waana ku mahadsantihiin oo kale taladiina haddii aydan afar hogaamiye kooxeed u kala fadhiisin caawa ammaan baa baan ogeysiin lahaa waa bajoojin waxsan yara sugalaalo hadda idinku isleedihiinba qof baan uga dambaynaynaa aad baa u fiican tihiin maasha Allah waxaa soo hadhay tan Somaliland habeen dhaweyd baa game aan arkayay inama ciyaaraya oo lagu laa reeray kala meteraya ayaa labadii inan mid kamid ah lagu yara digtay markaas wuxuu yiri war ma libax ku soo qaladaan buu ilaahay ma ka yaabtaan oo libax ma ku soo qaladaan marka oo sheekadaas waxay ila yara muuqatay oo sheekada imka halkan laga leeyahay Somaliland aniga bahalkii u ahaa aniga kan kale u ahaa wax aad runtii qof kasta oo caqli leh oo ku yara qoslayo ayuun baa waxayna ka dhignaydun sheekada inaan ka lahaa war libax ma la igu qaldo oo kale ayuun bay ka dhignayd marka horta reer Somaliland waxba qaldi maayaan haddii maxaa leedahay ay u baahan yihiin qofka u waajahaya gamekaas iyo arrintaasina waa waxay noqonaysaa waxay ka soo tashadeen dadka Somalilanderiska ee Somaliland u dhashay inay ka soo tashadeen ama hawiyaha noqdaan faqashini baa degan yes wuu ciyaari karaa nin faqashiniya hadii lagu heshiiyo waa ciyaari karaa nin hartiya hadii lagu heshiiyo waa ciyaari karaa nin maxaa leedahay sawaaqroon oo majeerteen hadii lagu heshiiyo waa ciyaari karaa maxaa leedahay nin surra ah oo maxaa leedahay raacer gaaba waa ciyaari karaa isaaq baa ciyaari karaa samaroon iyo ciisana waa ciyaari karaan laakiin sida loo soo shaxaynayo iyo qaabka loo soo kala saaraya waa qaab u yaala reer Somaliland uma yaalo dadka reer Soomaaliya ka soo jeeda midna waan ka yara curdaaranayaayo waxay ahayd xil aan ahayd in aan anigu sheegto inuu qof aanu qalminay ag sheeganay aad baan uga nax markii uu qof yiri hebelkii labada buurood waxaan si tolma buur madow tolmaadu ku soo wada baan sidoo ma wuxuu leeyahay buur madow baa inala joogay u daayay boqorkii ummadda Soomaaliyeed marka teatarkan la isku ixtiraamo aad bay u wacnayda waxaan reerkiisuba geeyin qofka sheegtaana waa yara ceeb ay la tahay marka anu waxaan leeyahay bay hadalka waa dhaweynaya walaale de waxaan personal tag ma jiro midaan ku sheegay waxay tahay waa la kala hidaystaa wax walba anigu haddaan maanta idhaahdo shanta Soomaaliyeed baan wax u goynaya adeerkii baa u gooya u garnaqsada golayaal u fadhiista wadamo u dhex fadhiista laakiin inaan adeerkiina lagu aqoon awowgiina taariikh u lahayn aniga qosol bay ila tahay marka intaa waxaan kaga baxayaa
hees baa ahayd caruur iska hadashay ka soo qaaday meel cidlaa uma ka soo qaadaya iyo inay ka hal wax igu soo qalay horta niyo Soomaalidu meel kaste Allah iyo maxadad isku muuqdo horta aniga wax isku muuqdo male fiiri dad baa waxay raadinayaan attention iyo in awooyaashood iyo adeerayaashood loo gafo oo intaas saameyn ku yeesho laakiin adeeryaal iyo awooyaal wanaagsan oo taariikh leh oo gobonimo doona cidna uga fimayso oo daahir inta waa ka xeel dheer yahay oo uu fahansan yahay qofka uu rabo igu sawirta iyo hebel baan la hadlana anigu waa hore ka soo qalan jibiyo waxaas waxa laga qaadamayo waa ku celinayaa habeen hore geemka la sheegayana ninka xoreeyay ee joojiyay waa aniga ee cagaha u laabay ninka calanka Soomaaliland hore difaacay aniga way dadna meesha dawarsi u joogaan dadna qadiid bay u joogaan waa la kala mirmo waa la isbartay waa la go'doonsan yahay dad baa go'doonsan oo qadiid oo quraacan oo cashayn dadna way dhirigsan yihiin marka kuwaana irsaqa waasa Allah uga dhigo in Allah yarsuq ma sha Allah biqeer xisaab ilaahay irsaqa martaqa xisaab aan ha irsaaqo inaguna waa joognaa waxa ay sheegay kaliya boqorka labada buurood baa hadlaya ilmo yar hadlimaya barnaamijka ku soo laabo marka social media hadlaya barnaamijkaas uu dhamaanayaa ka Soomaalilandna dadkii ka go'do iyo odayaashooda ku laabanaya kan Soomaaliya odayaashiisa tihiin soo kaxeeya aan meel isugu nimaado sheekada caruurtii waxa mid kale waxaan kala hadlaya adiga baro xarfo dadka aad kala hadlaysaa qadiis Soomaaliland ha ahaadaan dadka matala qadiis Soomaaliland dhabta ah haddana aqoon aan idin baraya warka intaas ku dhan yahay وانا ما ستين وياي دارو ما سنتين محمد وحيران كاوريو اتورو 1 minute baan waxay qoranayaa waad qaadan doontaa walaal 1 minute baan dardaaranayaa siinaya maadaama keligii ka joogo maxaa la reer Soomaaliland markaad soo kortay هدايا مركز سوكرتي هدايا مركز سوكرتي magaciisa ku dhawaaqaayo oo u gafayo aan ka celinayo kula hadaahir meesha ma joogo hadda daahir waa joogaaye waxba dhaga hadalka naga daayo magaciisa sheeg ninka ku socotid magaciisa hadaay wataa ka celinayo ku dhahay daahir بروتوكولك كله يديك هذا يسوي شيء هذا وحير برونو ما يليم بالله وحير وحي نوبل يدوار هذا ني horta qolada Soomaaliya lagu yaqaan systemka iska dhaxyaacayo ana talinaya ana hadlaya runtiina de wixiini un ba ka muuqdo baan maleynaya halkan oo inaydan waaya arkin ba wali anaga horta noocad waa talabaad anigu qof teetal aanu lahayn iska sheeganayo oo cid aanu ag istaagi karin carabka ku soo celcelinayo jeclaysanaya waxaan u arkaa nin talwaaya oo xaqiisa intuu waxba ka soo waayay isla bal meel kale ay ku sawir Soomaaliya dadka lagala tashado waan aqaanaa umaleyn maayo caawa in cid aan Soomaaliya wax laga weydiinin abidna aan wax laga weydiinin inaan oranayo war Soomaaliya maxaa baalkeeda suldaankii waxaynu la joognaa marxaan odaygii waxa weeye waqti ugu badan ee Soomaaliya ka tirinayay marka dadka isaga ku daba fayli lahaa inay yiraahdaan ummadda oo dhan baan u wada talinaynaa aniga horta waxay la tahay cawaaqib darro ay la tahay laakiin isaga gacanta u sii yara daayay baan qabaa taana haddii isagu dadkiisa yiri socda u diidi maayo waxaan leeyahay waxa weeye waad ku maadsan tahay inaad ummadaada dhiirigelin uga dhigto inta ay in la midab balse waxaan kaliya cadaynayaa aan sheegaya warniman yahow qofka mas'uuliyadda sheeganaya waa inuu noqdo qof ay naftiisa marka hore ka muuqato haddii reer Soomaaliya hogaamiye kooxeed markii hore waa dooran jirteen maantana kuwa caruurta iyo xaafadaha iyo dumarka la sheekaysta haddii aad taadaan madax bay noo noqonayaan waxay la tahay reer Soomaaliland inayna geemka iyo ujeedadiisa iyo aragtidiisa kuba soo dhawaan karaynin oo aynu halka ku kala boodayno marka qofka aad arinta madaxda uga dhigaysaan qof sifeedii la noqdo aadna waa maasii أنا هدايا محمد علي أذان كود بقر كدرقات دولة ما هل ما يعني بقر كود أصله بسول كي هاي لما دبعت تمو أذان كود داي هذا الكوضع بقر كرسوني بدولية محمد محمد قال لي هلا وبس دخلنا قال لي هدايا برا المية إنت محمد قال لي نيو أنا وحنا أقول سنة هاي أمان احترامية مدح برنامج شرفك يا كرامة الصومالي لها أنا قلنا غير صومالي أنا المادة الريال وكافة فني احنا فرقلنا هنا بعد نحني هراني كل شيء أنا وحرب أنا عندنا وحدي بنينه ساعد أنا ظاهر بأن متلك كرو
baron baan matali karo way idinka meel dika ogolaadna marka faragelinta adinku dhaxdiina ma dhaxgelin intiina waxa ku sheegtaa maxamed cali horta mid aynu maxamed cali isla garan sida maxamed cali raali ahaw sida aad noo leedahay hana faragelinina xaqiinana waxaad ka dhamaysaa in aan faragelin sameeyo markaasaynu heshiin karayna annagu reer Soomaaliya hadaan annagu waxaan rabnaa wanaag baan rabnaa in adinkuna ayna naga xumaan annaguna aanan xumaan adinkuna aanay dhibaateen annagu aanan dhibaateen aniga soo dacaawani daarooda mi soo nin raaxana mi hataan annagu daar cali soo baan nagu matali karo tala naga dhaxayso dal baa naga dhaxayo aragti baa naga dhaxayso aan kala aragti duwanaan taayada marka annaga xor u ah saan uga tashanay annaga inoo taala adinkuna tiina adinka xor u ah saad uga tashanaysan adinka inta la annagu ma dhihi karno marka in Soomaali boqorkoodii ma tiid baroonna dirbad wuxuu tahay ma dhihi karno marka horta waxaa la rabaa titaladaasi maxamed cali aan ku saxaynaa maxamed cali adigu suldaanka daarad ma hadalka ka soo dhamaado maxamed aan dhamaysto inaan qof walba oo yahay inaan ku ixtiraamno la rabaa baronow afayeenka beelaha direed baata dir koonfurna way degtaa Soomaaliyana waa degtaa Somalilandna way degtaa haddii daahir uu yidhi anigu waxaan ahay boqorkii irir Soomaali adinkaa laynka rabaa inaad tiraano irir Soomaali banihiin iyo waan nahay adinka taa idin taala laakiin ma dhihi karno anagu maadaama aan dood dhexdhexaad ka nahay irir Soomaali ma tiid ma dhihi karno waxa weeye waxyaalaha hadda aan ka soo kabanaynay ka mid tahay oon abtiyaasha qolada aan kala hadlayno oo aan kala talinayna waxay tahay war xaqiraada aynu iska dhaafno qof walba wuxuu yahay anu aqoonsano waa midaan caawa Yacquub si halkaan aan ku dagaalanay iyo nimanka abtiyaasha aniga marka waxaan ku soo gabagabaynayaa niyo marka anagu waxaan rabnaa Soomaaliya ciday keensanayso ninkaas soo haduu yiri aniga Brown aan soo jeedino ahayd in loo tartamo musharax qof walba oo Soomaaliya jira oo tartanka ka soo qayb galo kii aan Allah ilaahay isla garnoon dooranaa nooga qayb galayo talab reer koonfureed aan ku soo dhamaysanayna daahirna tala nagala dhaxayso ilmaada riyaalo marka xashku xogaa naga daaya waxa kale ee personalka ah danta aan leeyahay warmay maxamed baanta ka baxdaaba si walaaqay waan goranaya waa ka baxay iyo horta maxamedow geemka wadadu lahaa ka leexin khilaafna ha ka dhex abuurin Soomaaliya Somaliland laba dal baa la yiraahdaa irir iyo dir iyo daaroodna waa qabiilaad markii laga hadlayo Somaliland anigoo afhayeenka qowmiyadda direed ah Somaliland marka laga hadlayo halkaasaan istaagaya laakiin marka laga hadlayo dir kuwa Somaliland kuwa Soomaaliya kuwa Djibouti kuwa Ethiopia markii dir laga hadlayo qabiil laga hadlayo miiskan soo fariisan laakiin arrintu markay tahay dawladda Somaliland marka arag dalka Somaliland marka laga hadlayo qofka Somalilander-ka baan u daba fadhiya Soomaaliya iyo Somaliland baan wada hadlay aniga adiga iyo Ciise iyo Daahir reer Soomaaliyeed min reer Somaliland masreer Somaliland waxa nagala jooga Ciise wixii arrimaha Somaliland ana cidaynu kala hadlayno waa reer Somaliland annaguna reer Soomaaliyeed daahir hadalkiisa haduu yahay wartan Soomaaliyana adiga baro rag odayaalaatiina ka soo shaqeeya tan rag ina kala shaqeyn lahaabaan isu kin xiraya haduu hadalkiisa u dhigna wani oday uu dhihi kara war waxa isu kin xiraya idinki reer Somaliland waa isu kin xiraya boqorka Soomaaliyeed dhageysaniyo ir waa qabiil meesha miyaan ku hadlayni anoo diraan arag Somaliland man kala hadla ma kana ba dire oo ir ka dhow oo dire man kala hadlo arrimaha Somaliland قبيل مي أدوك كان ويا أفهيان فننا أفهيان ويا أرمها قبيلك هذا دارات هنا أو الدارات أضاء السعة الجيم كدونس أنا أدرى كل الله عيسى سومال لنا كل ما سومال لنا هم كل ما الله هذا الله الله يسوع سومال لنا الصومالي إنه قال لنا الله بدل بين الله لنا أنا جو عيسى إن أديرك يا أدير قرب كأجر نقنية أو كل الضل ويلك إن أديرك يا ورسنجلي بعيسى أنا الضل نقنية يا دلبان marka inaad arkaladaa Somaliland wixii reer Somaliland anaguna reer Soomaaliya daahir door odaynimo oo isku keen xiraya idinkii reer Somaliland waana dhigi kara oo odaynimo oo anigu oday baan ahay xagana dadka degan waa ehelkii reer Soomaaliya waa ahay xagana ehelkii wadada waa isku keen xiraya anu laftigu hore baan ku yiri waxaan ku yiri labada qowmiyadood baa ka soo jeeda waxana afayeen qabo qowmiyadeed baan ahay qowmiyadu xagana waa degtaa isku xirkiinan ka shaqeynaya laakiin geemka dhexdhexaad baan ka ahay aan laftigeeyo markaa waa ogtahay asagu soo kama shaqeyn karo isku xirkeen okay maya
door dhexdhexaadnimo waa isu kan xiriya uu dhigi laakiin anagu reer Somaliland waxaan kala xarnaa Somaliland marka reer Soomaaliya nahay reer Soomaaliya nama soo faragelin kara anaguna reer Somaliland ma faragelin karo Somaliland عيسى أنا كهري وكادي وكادي أنا كهري إذن هو غير سومالي عيسى وكسو قبقبينا أنا قبقبينا عيسى عيسى ودا لي حاجة ما تروقين لي دودا أن مش هو معنا وحيهات صوماليا إي سوماليلاند قبيل ماهن ما قبيل ماهن مركا أنا دودا وحن أوهكيي ماداما وعيسى داهرو مقان معاقاي داهر ريميد marka labadoodiina aan si toos ah isku galeenin de Soomaaliya iyo Somaliland haloo doodana Somaliland iyo Soomaaliya qusaysa maahane qabiil ma qusayo maxamed adna xagashada ka daa ciidaha kala riixaysi waxaan rabaa marka aniga wada ka tagaya soo wada yaacina wada ka tagaya maxamed cali waa ka tagaya waxaan rabaa dhageyso system ka maxamed ma oran lii xaaji rasi maxamed ninka lii xaaji waa naga tagay daahiro hadda maxamedow daahir waxay u kaadeen ciise wadna ay kaadeen cabaar baan dhageysanayay daahir soo dhawow ciise wadna sidoo kale afayaan sidoo kale niman yahow artu wax badan baa isku qasteen ragga sidii inay isku raadiyeen baa muddaa dami hore niman qololaa tihiin niman waxaa tihiin wada afhayaanaa baa tihiin nololba ninka kale wuxuu oran karo qolkiisu ka oran karaa niman yahow qolkan madaxweynaha ama waxa weeye afhayaanka haan ixtiraanno intaas horta idinkaan leeyahay oo waxaad isku qabtaan in maadeeryaal u kaadiya waxaan ka shaqaynayno aniga oo atoora oo iyo madaxamed iyo afhayaanka aan u yeeranay daahir caalis iyo ciise iyo dhamaantiin waxa weeye in maadeeryaal xagashadaas in la daayo iyo xaqdiga iyo xaasnimada iyo maaragtay waxyaalaha la isku diidan yahay in wax la isku ogolaado anagu waxaan u taaganahay waxa weeye waa in wax la isku ogolaado in qofku title ku sheegto magaca uu sheegto waxa uu wato waxa uu ku doodayo magaca Soomaaliya iyo Somaliland in waxyaalihii dhacay hadda TikTok ka dhacay inaan saxno oo Somaliland aan dhahno warniyo Somaliland salay Soomaali waxay ahayd koonfuri waqooyi macnaha jamhuuriyadda Soomaaliya koonfuri waqooyi calan baa waqooyi u taagan maantay koonfurna kiibulugahay wata in lagu ciyaaro si bilaa xiqdiya bilaa xasada oo waxa weeye dhalinyarada Somaliland si ku qaacsan tahay iyaguna calankooda difaacdaan kan buluugana ay difaacdaan dhammaan reer Soomaaliya iyo ciidii waxa way taageersan markaas ama Somaliland ha joogo ama NFD ha joogo ama Shton ha joogo calanka ciidii taageersan ay difaacato qorshaheena intaas uu ahaa inaan ka wada shaqeyno marka dhammaanteen waa isku raacsannaa waxyaalaha kala marka yararka aan xagga iska dhigno geemkana ka shaqeyno idinkoo raalli ama santii